magaalada Laascaanood ayaa ka mid noqotay magaalooyinka dadka ugu badan lagu dilo marka Muqdisho laga yimaado. Muqdishona waa dawal la fahmi karaa waa magaalo dagaalo dalal sheeya ay ka socdaan, laakiin Laascaanood dadka guryaha loogu soo dhacaya, qofka guriga loogu soo dhacaya habeenkii ama luuq waa loo istaagay waa la dilaya, cid allaal cid shil lama yaqaan, qofkii waa la qaadaya waa la soo aasiyay laba cali dibisan weydiinayso. Weliga horta baantu waa isleen jirayo deelma ma aysan dhicin intaan anigu ka warqabay ilaa intaan dee jirayba dad guryaha loogu dhacayo dadka ma taqaanaay ganacsatadii iyo odayaashii iyo waxgaradka iyo ningarboodkii guryaha loogu dhacayo inta afka loo soo dubta la laynayo. Arrintani waxay intii Soomaaliland qabsatay gobolka ayay aad ugu soo badatay. dee cid ka hadlaysana male, warbaahintiina ayaga xukumo dadkiiba qolo kastaba afkay qabteeno cid ka hadlaysa ma jirto. Marka waxa weeyaan arrintan waa arrin aad iyo aad u fool xun in habeen kasta ma taqaanay reer Laascaanood nin garboodkeeni iyo culimadeeni iyo ma taqaanay dee waxgaradkeeni inta dhexdeena lagu dilo aan cidiba isweydiino inta qaadaan aad soo aastaan oo sidaa sheekadu ku dhamaataba. Marka bal waxaan soo isku dayay inaan soo ururiyo listiga dadka qaar, laakiin dadkii oo dhan lama wada heli karo. Marka qaybo listiga kamid ah waa kuwan. Marka haddii aad hayso listi magacyo hoos bal ku reeb ma garanaysaa. waxaan arrintan waa arrin u baahan in reer Sool iyo baandaha guud ahaanba ay arrintan ay hoos u eegaan, because arrintani Somaliland ka hor Laascaanood kama dhici jirin. Laascaanood waan joogi jirnay. Marka waxani waa arrin aad u cusub. dad afka inta ku soo duubtaan gurigaagii ama dukaankaaga inta kugu soo dhacaan qoorta kaa jarayo aan cidiba isweydiin cid loo xidhan cid loo qabanay waxba. Marka insha Allah arrinta waa arrin u baahan in ma taqaanay muraayado gaar ah lagu eego.